ardaygeena 18 sannadood jaamacad dhiganayay irbad inaguma soo biiriyo irbad sida loo sameeyo lama baro iska daa xataa dunta sida loo sameeyo waxaanaynu xidhanoo dhan waa dun sida loo sameeyaa ardaygeena PhD wata ma yaqaan iyagana midaan aqoonba lahayn oo maanta miyi ka soo galay baa waxaa lagu tacliiminayaa farsamo taasuu markiiba isagu uu mustaqil ku noqonaya kelidii istaagi karaya ardaygeennii waxaa lagu yidhi 18 sannadood baad wax baranaysay wax allaaliya wuxuu adduunyada ku soo biiriyey nama jirto maca daalika haddana kibir buu sankaa taagayaa anigoo PhD wata anigoo caynkana war bal irbad igu soo biiri 30 sannadood baan kula daba taagnahay adduun hadhow markuu soo baxana anigu ii imanaya wada aaba shaqagee wada xagga buu shaqageeyaa waxaan tacab lahaa iyo waxaan hawl lahaa oo dhan ku galiyay inaan kugu nastaan rabay waa maxay haddana aniga yani inta CV-gaaga iyo keento aaba shaqagee waa wax loogu tala galay in maskaxdeena lagu cayaaro ma fahamteen marka barakallahu fiikum cilmigu wuxuu u baahan yahay dhaxal luqad lagu gudbiyana wuu u baahan yahay waxaan saa u leeyahay maadooyinka inagu cusub oo dhan magacyadii ay inoogu yimaadeen bay la baxaan iminka maalan mobil baa inoo yimid hore umaynaan lahaan jirin inagoo magac ulamaynaan bixin mobil baynu nidhi TV baa inoo yimi inagoo magac ulamaynaan bixin mobil baynu TV baynu nidhi saacad baa inagu cusub waa tanaan gacanta ku xidhanahay inagoo magac umaynaan samaysanin saacad baynu nidhi roog baa inoo yimi inagu maynaan samaysan magacaynu leenahay roog baynu taasoo dhan waxay tilmaamaysaa inay amaah inagu yihiin iyo ergiso maadooyinkaasoo dhan wixii inaga inala da'a ee luqadeenna la da'a asmaa aynu inagu leenoon cidi inala wadaagin baynu ula baxnay qurac baynu nidhi garool baynu nidhi jiic baynu nidhi maraa baynu nidhi soo arki maysid maadooyinka nolosheenna la saan qaaday oo dhan magacyo aynu inagu leenahay ayaynu u naqaanaa wixii ergisa inagu ah ee doolaale inoogu yimidna sidii ay inoogu yimaadeen baynu u daynay taasuna waa ta ay ka sii sahamiyaan culimmada luqooyinka adduunyada ka tirtirmaya bay yidhaahdaan wakhti ay noqotoba waxay uga tirtirmayaan waxa weeye adduunkii horumar buu samaynayaa erey cusub baa imanaya wax erey bixin oo ay ummaddaasi u samaysataa ma jiro dabeedna maadooyinkii la isticmaali jiro oo dhan afqalaad baa loo bixinayaa ka iyagu hore u samaysteenna wuu ka tegayaa ka iyagu yaqaaneenna wuu lumayaa iminka maalan tusaale malqacad baynu nidhaahnaa af carabi wuxuu tirtiray magaceennii ahaa fandhaal saxni baynu nidhaahnaa wuxuu tirtiray magaceennii xeedho marka wuu sii baxayaa marka afkii wuu sii lumayaa erayo badan oo qadiim ah oo macna inoogu fadhiyey ayaa la tirtiray oo erayo qalaad waxaynu ummad ku nahayna waa afka waxaynu waxay ummad ku noqotaa waa laba waa dalka ay degan tahay siday u aaminsan tahay iyo luqaday ku hadasho sida u ilaashato iminka haddii nin inagu midabihi uu yimaado oo uu af oromo ku hadlo oo luqadii af soomaaliga garan waayo markiiba waxaynu xukumaynaa ninkaasi inaanu soomaali ahayn soo ma maxaynu soomaalinimada kaga saarnay luqadii baynu kaga saarnay marka luqadu waa xikmad ilaahay bixiyo oo ilaahay aayadihiisa ka mid ah wakhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum in luqadaada aada dhowrataa waxa weeyaan waa kaadhka aada ciyaarayso adduunyada aada ku leedahay waa kaadhka aada ubadkaaga aqoontaada ugu gudbin karto laakiin haddii meel kale aada wax ka raadsato dhaqankaagiina waad ka guuraysaa dhaqankii kale ee aanad la noolayna ma wadi karaysid afqalaadna ku anfici maayo